Soo dhawaada saaxiibayaal, 16 jir asal ka soo jeeda Ciraaq ayaa waxa uu carqalad iyo baqdin ku sameeyay systemkiisa iyadoo Mareykanka ay ku shaqeynayeen oo weliba ay ku duwan yihiin sirar iyo xogo badan oo wadamo badan laga soo aruuriyay. Haddaba halkan ayaan ku eegaynaa qisada saxda ah ee hackerka Mustafa al-Bassam. Mr. Bassam waxa uu ku dhashay Baghdad, Ciraaq sanadkii 1995. Asiga iyo qoyskiisu waxa ay kasoo carareen kasoo qaxeen dagaaladii iyo amni daradii ka jirtay dalkaasi, ayagoo magangeliya ahaan u yimid dalka UK. Mustafa Bassam waxa uu ku noolaa London. Yaraantiisii waxa uu aad u jeclaa programming-ka iyo video gaming-ka, waxa uuna aad u xusi jiray inuu darajo sare ka gaaro computer science-ka. 8 jir marka uu ahaa Mustafa waxa uu bilaabay habka ay u shaqeeyaan kombiyuutarada, inuu barto weliba data analysis-ka, focus-kana uu saaro qaabka kombiyuutarada hacking loogu sameeyo ama hacking-ka qaabka uu u howlgeliyo. Barashada hawshaas waxay ka dhigtay mid waqti badan ku qaata kombiyuutarkiisa, mar uu gaming ciyaarayo iyo mar uu focus ka saarayo programming-ka iyo weliba coding-ka. Mustafa marka uu ogaaday in uu hacking sameyn karo, coding-kana aad ugu khibrad sareeyo, waxa uu isku dayay ku bilaabay iskuulkii uu dhigay, markaa asigoo dhex galaya website-ka iyo system-ka iskuulka uu ku shaqeeyo si uu ogaado xogaha ardayda iyo weliba xogta macallimiinta sida salary-ga ay qaataan, ardayda kale maadooyinkooda grade-ka ay ka haystaan oo kale. Hadafkiisu ma ahayn in uu blackmail ku sameeyo iskuulka, laakiin waxa uu ahaa in uu bal isku dayo in wax uu hacking ku sameyn karo. Mustafa tan waxay siisay dhiirigelin, waxa uuna raadiyay dad badan oo hacking-ka ku gacan sareeya, waxa uuna bartay qolo badan oo hacking-ka meel sare ka gaaray si uu ayaga khibrad uga qaato, wax badanna uu barto. Taasi waxa ay ka dhigtay asiga iyo tiimkiisa kale in ay hacking kaga dhigtaan wax ayaga madadaaliya, oo marba website bay hacking ku sameynayeen. Falaadkii, faraka ciyaarkii iyo wixii entertainment-ga ay ka raadinayeen waxa ay geysay in ay hacking ku sameeyaan systemka si ay ku shaqeynayso, si ay u ogaadaan xogta ayaga ugu qarsan systemka. Hacking-koodu waxa uu socday ilaa inta systemka si uu ka damayo. Taasi waxay sababtay in si fudud loo helo xogtoodana la soo helo, oo waxa kiiskooda ka dabtagay mid kaloo hacking ah oo agency ayada ka tirsan ah. Waxa uuna soo saaray tiimka hacking-ka ku sameeyay carqaladna ku noqday ama socodka howlihii CIA-da ay maalin lahaa. Kiiskooda iyo hacking-kooda ahaa ama ku saleysnaa entertainment iyo in ay tijaabiyeen awoodooda, waxaa soo saaray oo daqiiqado gudaheed banaanka keenay nin double agent FBI-da ka shaqeeyo lagu magacaabo Sabu. Waa hacker aad ugu sareeyo hacking-ka iyo difaaca systemyada. Waxa uuna soo saaray tiimkii Mustafa iyo kuwii kale hacking-kaasi la sameynayay, waxaana intoodaba lagu xukumay xabsi 5 sano.